Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan walaalaha qiimaha badan ee ku xidhan Sahanso, runtii muuqaalkan ayaa gebi ahaanba ka duwan mowduucyadii aan halkan idinkula wadaagi jiray. Waa mowduuc runtii ku farxad gelinaya oo gaaban. Waddanka lagu magacaabo Afghanistan oo runtii muddo aad u dheer xasilooni darro ay ka jirtay, ayaa shaaciyay inay sameeyeen gaadhigii ugu horreeyay ee tartan oo lagu sameeyo waddankaasi gudihiisa, waxaana sameeyay dhalinyaro reer Afghanistan ah. Ikhtiraca gaadhiga ama hindisaadiisa ayaa waxa iska leh wiil lagu magacaabo Maxamed Rida Axmedi. Baabuurkan ayaa ah nooca ciyaaraha, kaasi oo leh taayiro qaali ah, midabkiisuna waa midabka madowga. Qalabka laga sameeyay gaadhigani ayaa qaybna laga keenay meelo ka baxsan Afghanistan, qaybna waddanka gudihiisa. Sida uu sheegay Axmedi, waxay ku qaadatay muddo 5 sannadood ah. gaadhigani ayaa ku shaqaynaya mishiinka Toyota Corolla. موتور به شکل ساخته شده که اگر شما سرعت هر اندازه یعنی انجین قابل قدرت باشه این میتونه انشالله یه چیکار کنه سرعت ادامه بده. اما چنانچه ما بارها گفتیم انجین از فعلا عارضی هست، یعنی امانت هست. انجین یک کرولای 2000 هست از madaxda Taliban ee waddankaasi Afghanistan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay gaadhigani oo ka dhacday caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. waxaanay faafiyeen sawirro iyo muuqaalo laga soo duubay xafladda, waxayna ku baaqeen in si wada jir ah looga shaqeeyo sidii sare loogu qaadi lahaa heerka hal-abuurka iyo warshadeynta dalka. runtii waxay tallaabadan oo kale ina tusaysaa in dhalintu haddii ay fadhiga ka kacaan oo ay wax qabsadaan inay la tartami karaan caalamka intiisa kale, si kastoo waddankooda u burburay iyo duruuf kasta oo ay ku jiraanba. dadka wax ku qora bogagga internetka ee baraha bulshada ayaa muujiyay sida ay ula dhacsan yihiin gaadhigaasi, halka qaar kalena ay ugu hambaliyeeyeen Afghanistan samaynta gaadhigii ugu horreeyay ee gudaha ah.